meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. haddaba barnaamijkan waa kii ugu horeeyay maanta oo isniin aan idiin soo gudbanayno taariikhduna waa 6 bisha 7 2026 wararkii ugu waaweynaa ee caalamka gaar ahaan arrimaha bariga dhexe ee soo kordhay ayaynu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa saakay marinbiyoodka Hormuz dayra ka timid. waa laga dayrinayaa xaaladiisa inkastoo weli aysan jirin wax dagaala oo markaa hadda meesha ka socda, laakiin warbaahintu waxay soo ogaatay inaanayba jirinba ama ay aada u yar tahay markab ka gudbay maalmihii lasoo dhaafay marinbiyoodka Hormuz. maalinkii jimcaha iyo sabtidii 8 markab oo Iiraan ka baqay oo iska joogay kadibna wax soo dhaqaaqay ma jiraan alle maraakiibtii maraysay marinbiyoodka aaday u yar tahay. sababtu marka maxay tahay? maxayse keeni kartaa? marka hore waxay keeni kartaa maciishadii adduunka oo cirka gasha, shidaalkii adduunka oo isaguna cirka gala. marka maraakiibtii baqaysaa leeyihiin, waxay leeyihiin meeshan nabadgelyo nabad maaha, meeshan safe maaha. Iiraan iyo Maraykan xilli kasta isku bilaabi karaan. marka anagu Maraykanna wuxuuna leeyahay dhanka Cumaan mara, Iiraan waxay leedahay car meel aanan ogeyn mara. marka waa ku wareerneen meeshina miina ka buuxda si la yeelo male. Iiraan iyo Ingiriis iyo Faransiisna meel ay isaga booteynayaan oo Ingiriis iyo Faransiis waxay leeyihiin maraakiibta miilooyinka jidka ku jiraan ka qaadno si ay usoo maraan. Iiraan waxay leedahay cid aan aniga ahayn oo meesha mari karta ma jirto, miilada ma adiga gashaday. marka arrinkaas wuxuu keenaa la leeyahay tanaajuc, dib u dhac weyn ku yimid isticmaalka marinbiyoodka Hormuz. haddaba marka telefishinka Al Jazeera oo xogtan soo helay ayaa sheegaya saakay wargeyska la yiraahdo Bloomberg ee Maraykanka laga leeyahay ayaa xaqiijiyay bayaan rasmi ah oo soo baxay oo sheegaya in daboolka laga qaaday inay aad u yaraanayaan dhaqdhaqaaqa isu gudubka marinbiyoodka Hormuz halka maraakiibtii mari lahayd. haddaba wararkii ugu dambeeyay wakaalada la yiraahdo Bloomberg ee waddanka Maraykanka waxay sheegaysaa in xarakada ama dhaqdhaqaaqa wadadaasi maraakiibtii isticmaalaysay marinbiyoodka Hormuz ay weli la kulmayaan taxadiyaad ama caqabado xoog leh oo ku saabsan inay halkaa ka gudbaan. marka halkaa waxaa ka jirta marka mushkilada ka jirta. marka haddaa aragto maciishadii oo weli qaali ah, shidaalkii oo qaaliyoobay, ha ka shakinin meeshaas dhibaa ka jira. weli wax heshiis rasmi ah oo laga gaaray male. marka ilaahu halkeen waaye halkaasu marka wararka saakay cusub ay ka mid tahay. wararka kale ee saakay cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah maalin ka hor ama 2 maalmood ka hor waxaan idiin sheegnay oo warbaahintu ka hadlaysay diyaarad Maraykanku leeyahay oo helicoptera oo ku degtay meesha la yiraahdo Bahrul Arab, badda Carabta meesha loo yaqaano. waxay ku dhowdahay marinbiyoodka Hormuz. shaqaa meesha ka qabanaynay dheen roondan ku jirnay. diyaaradii marka ciladaa ku timid baddiya ku dhacday. 3 waa la soo badbaadiyay, midaa la waayay. waa taan markii idila mid badda lagu waayay mar hore lagu qadeeyaa idin moogtahay. libaax badeed iyo waxa badda ku jira mar hore kuwaas ku loqloqday. hadda marka Maraykanku waxay leeyihiin ustuul qaamis, macnaha saldhig badeedka shanaad ee ciidamada Maraykanku khaliijka ku leeyihiin say u raadinayeen 100 iyo dhowr saacadood 14 kilomitir ama mayl ayaa saas looga raadiyay ninkii waa la waayay. mida marka wuxuu leeyahay maxaa laga raadinaa meeshaas alaab gaajeysana joogto mar hore markaas lafiisa faynteeri leeyahay. marka meeshaas halkaasu maray aridatusu marka warkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. haddaba saldhigga shanaad ee ciidamada badda Maraykanka ayaa sheegay inay joojiyeen inay raadiyaan askarigii Maraykanka ee lagu waayay meesha la yiraahdo Bahrul Arab ama badda Carabta deegaanka loo yaqaano. haddaba ciidamada badda ee Maraykanka ayaa si rasmi ah u sheegay gelinkii dambe ee shalay inay joojiyeen howlgalladii ay arrinkaasi ku baadigoobayeen askariga Maraykanka ah. tan iyo maalintii Arbacada ahayd ee la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegay in diyaaradii helicopterka ahayd ee Maraykanka ee ku dhacday Bahrul Arab uu ninka la socday. ciidamada Maraykanku waxay sheegeen
102 saacadood inay ka raadinayeen ninkaas ilaa 14,000 oo mayl oo isku wareeg ah kadibna way quusteen oo way waayeen. marka waxay leeyihiin 24 saac gudahood magaciisa la shaacin doonaa, ehelkiisana waa la wargeliyey. khalaas ninkaas baddo ku baxay meesha saa lagu qadeeyay leeyihiin ninkaas waa la waayay dhehen, waa quusanay dhehen, meel kasta ka raadinay ninkaa ma noole dhehen. marka sheekadaasu halkaasi maray. diyaaradaas marka weli si rasmi ah faahfaahin badan lagama hayo maraykanku, laakiin waxay yidhaahdeen ma u malaynayno inay wax cadowtinimaa ku dhaceen, laakiin baaritaan aan ku haynaa. baaritaankii wax natiijaa weli kasoo baxay ma leh, inkastoo warar duulduul ay sheegayaan in ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ay markaa gantaal ku dhufteen, laakiin taana iiraan maysan ka jawaabin. marka warkaas isaguna wararka waaweyn ayuu ka mid yahay saaki. warka kale ee cusub ee saakay barnaamijka aanu kusoo qaadanayna wuxuu yahay arrinta cajiibka ah horta xusuusiyo sheekada way noo soo socotaa. halka waxaa noogu sawiran baranbaradii laga cararayay, hal la dilo baranbara guriga ku jirta lalahaa. adduunka waa qaaliyooda, xabadii waxay maraysaa $8 laleeyahay. sheekayaab laan idinkaga hayaa. marka laakiin waxaan ka hormarinaynaa koonfurta lubnaan. haddaba maraykanka saraakiil ka tirsan iyo saraakiil lubnaaneys ah iyo saraakiil israa'iiliyiina ayaa waxay wadaan wadahadal ayaa u socda sidii laba aag oo tijaabo ah israa'iil ay uga soo bixi lahayd, ciidanka lubnaan loogu wareejin lahaa, xisbullaahi iyagu ay halkaa uga cayrsan lahaayeen. markii labadaa aa ku guulaysataan tijaabada ah ayaanu ka fakaraynaa inaan meelo kale idinku wareejino oo aan ogaano inaad xisbullaahi ka adkaateen oo meesha la wareegteen iyo in kale. marka waxaa loo tuurayaa xisbullah iyo ciidanka lubnaan. waa fahmaysaa, maraykan iyo maaragtay israa'iil ayaa dhexda gashanaya ciidamada lubnaan ee dowladda lubnaana. marka waa idinku wareejinaynaa, laakiin labadan tuulo bal tijaabiya ilaa xisbullah meelay aada usoo galaan waayo oo israa'iishu ay qaati bilahi ka joogto nimankaan marka loo diray. nimankaan markay xisbullah isma hori doonaan, nagtaa la iska saari doonaa. marka meesha marka lagu wareejinaa, marka hawshaa socoto weli laguma wareejin, laakiin shaqadaasaa la rabaa maalmaha soo socday la qabtaa la leeyahy. haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyey, dhexdhexaadin maraykanka uu wado ayaa waxaa wadahadallo ay u dhexeeyaan saraakiil israa'iiliyiina iyo kuwo lubnaaniyiin ah, taasoo ku saabsan inay israa'iil ka baxdo laba aag oo tijaabo ah ama laba tuulo oo ku yaala koonfurta lubnaan. haddaba arrintan ayaa aada u socota. waxaa sidoo kale netanyahu laftirkiisa uu sheegay inuu qaban doono saacadaha soo socda kulan amni oo looga hadlayo arrintan, sidii markaa loo ogaan lahaa ciidanka lubnaan inay ku filan yihiin hawshaas iyo in kale. waaye sheekadaasu markaa iyaduna halkaasay martay. sheekada aan la yaabay adinkuna kollay waa la yaabi doontaan, intii warka haysana iyadoo way og tahay, laakiin anigu maaba ogeyn baranbaro intaasoo lacaga la kala siisanayo. baranbaradii ayaa waxaa la leeyahay $8 ay xabadii joogtaa. baranbaradii waaye halkan ku sawiran, xabadii waxaa la gadaa $8. waa midda weyn, midda aan weli qaan gaarina lagu leeyahay. baranbaradii la kala saarayaa 3 ilaa 4 la kala siisanayaa. rag iyo dumar waa isku lacag, macnaha lab iyo dhadig aan ka wadaa. lab iyo dhadiga baranbarada waa isku lacag. baranbaradii la kala xadayaa, adduunkia la geenayaa. weliba baranbarada qaaliga ah gabgablayo laba rabo baranbaradii guriga joogtabana iska qabsato. baranbarada nooc kala waaye, hadda sii ogow. baranbarada waxaa ku dhex jirtaa lagu leeyahay nooc aan baalal lalahayn oo aan biibi karin. waxay aada ugu badan tahay Madagascar, jasiiradda la yidhaahdo. meelaha badan oo afrikana in laga helo waa laga yaabaa Soomaaliya armaajada markaa soo jiido gadaal iyo meelahaas inaad ku aragto, laakiin mid baalal leh laba rabo, midda aan baalasha lahayn aan mucjiso dhigtaa laleeyahy. xabadii waxay joogtaa $8. adduunka waaba la raadinaa. haddaba marka aridintusoo sheeko la yaab leh oo laga diyaariyey oo telefishinka aljaziira saakay aada uga hadlayo. haddaba waxaan leeyahay $8 ayay calaa waaxid ama xabadii ay joogtaa
haddaba arrinkan waxaa la yidhaahdaa baranbarada Madagascar. haddaba waa arrin lagu faa'iidayba dadkii baranbarada ayay raadinayaan. Madagascar waa la raadinayaa, xabadii $8 la siinayaa. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa la leeyahay meeshaana mas-uuliyiin waddanka Australia ka tirsan ayaa bishii lasoo dhaafay ee June waxay markaasi sanadkan 2026 waxay ka shakiyeen aag dhan oo xiran oo dad yar ay galaan. waa waddanka Australia. markii ay gudaha u galeen ayay waxay arkeen baranbaro nooc kale ah oo halkaa lagu xanaanaynayo. baranbaradaas ayaa loo sheegay qiimaheedu inuu u dhaxeeyo $100,000 ilaa $200,000 lacag u dhiganta. marka lacagta Australia $200,000 waxay u dhigantaa $142,000 Mareykanka ah. haddaba mas-uuliyiinta ayaa baaritaan ku haya arrinkan. haddaba sababta ugu weyn ee baranbaradan ay u qaaliyowday oo adduunyada oo dhan loo kala safrinayo, lacagta intaa leeg loogu qaadanayo, ayaa waxaa la sheegayaa in arrinkan uu yimid kadib markii cilmi baarayaal dhinaca jaamacadaha ah ay ogaadeen in wax badan ay ku jiraan baranbaradan oo daawooyin ah. marka laga hadlayo waxay daweysaa waxyaabaha la yiraahdo madhalaysnimada oo dadka aan dhalin ayaa waxaa lagu daweeyaa. waxaa sidoo kale baranbaradan lagu sameeyaa in jeermiska iyo waxyaabaha ay ku jirto laga saaro kadibna gooni loo xanaaneeyo. waxyaabaha kale ee la yaab kale ee baranbaradan lagu guulaystay inay badbaadisay kumanaan dad ah ayaa lagu leeyahay sanadihii lasoo dhaafay. haddaba sidee ku badbaadisay? koox injineera oo ka kala socday wadamada Singapore, Shiinaha, Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa ogaaday sida loo habeyn karo baranbarooyinkan oo markaa looga faa'iideysan karo. injineeradu waxay sameeyeen qaab ay baranbarada dusheeda ku rakibayaan qalab yar oo ay dhabarka ka saarayaan, kaasoo u ogolaanaysa baranbarada in ay marto meel kasta oo loo diro oo uu hagayo bahalkaas. waxaana lagu raadiyaa dadka dhulgariirka marka uu dhaco burburka hoostiisa ku jira. waxaa soo sheegaysa baranbaradaas iyadoo signal soo diraysa, qalabka lagu rakibayna uu sheegayo. haddaba dalal badan oo adduunka ka tirsan oo dhulgariirada kusoo laabtaan ayaa hadda bilaabay inay iibsadaan baranbarada noocaasa. wadamadaas waxaa ka mid a Turkiga, Jabaan, Iiraan iyo meelo kale oo dhulgariirka u soo laabto oo ay Indonesia ka mid tahay. adduun intaa joogtid wax kasta waa arkaysaa. baranbaro xabadii joogtaa $8 maba la arkaayo, waaba la raadinaa. baranbarada nooca la raadinayo waa nooca aan biibi karin. baranbarada qaar maaragtay iska biibiibayso meelaha socota, laakiin tan ma biibi karto, baalal ma lah, laakiin ganihii way leedahay oo afka hore wejiga ugu xirnaa. waa baranbaro caadiya oon baalal lahayn. marka meesha kore ayaa qalab yar lagu xirayaa, signalka ay bixinaysaa lala soconaya. meelaha dhulgariirka marka waa la tababarayaa. meesha dhulgariirka dhagaxaanta hoostooda la gelinayaa. bas qof nool oo dhaqaaqaya oo jirkiisu kulul yahay markay aragto signal ay soo diraysaa. meeshaas marka hala fagaa la leeyahay, makiinadihii ha ka qaadaan alaabtii. sidaas ayaa marka hawsha ku soconaysa. adduunka waa kaas. marka xaalka adduunyadu maalin walba horumarkaasaa la gaaraya, meel walba waxbaa laga dayayaa. annaguna annagaa isku mashquulsan. waa adduun iyo xaalkiis. haddaba fakarkiina iyo aragtidiina sheekada bal kasoo dhiibta oo maaragtay waxay idinla tahay bal idinkuna soo qora. barnaamijkaygii ugu horreeyay saakay intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa asxaabay. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno, laagareeya oo sheergareeya barnaamijka. nabadgelyo.